السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة soo dhawaada waxaad ila hadlaysaa waa Jamilo saaidin ka ballan qaadayba waxaan rabaa inaan ka hadlo immigrationka oo si waxyaabihii ka soo kordhay immigrationka dhowrka bilood oo aan maqnaa inaan soo faahfaahiyo caawa haddii alla idmo wax saasa isma bedelin travel banki wax yar oo macno lahayn iska bedelay laakiin caqabado hor la ayaa soo baxay maxkamada jiro marka waa faahfaahin doonaa haddii alla idmo travel banka muxuu ahayto qodobka quseeyo uu ugu dambeyn doonaa haddii alla idmo marka videoga si fiican u fiirso qodobka ugu koowaad oo soo kordhay oo raba caawa inaan ka hadlo waxaa waaye waxaa jira wax la dhaho asayliga ayaa wuxuu u kala baxaa labada asayliga waxyaabaha uu u kala baxo waxaa waaye affirmative iyo defensive marka affirmative waxaa waaye marka qofku uu isdhiibo oo kale kaba soo qaad visa ku timid oo kaleeto meeshan wadanka caadiga u soo gashay waraaqa buuxsatay waxa u dirsatay immigrationka oo kaleeto case-kaaga sugaysa case-kaaga wuxuu aadayaa markaas oo kale immigrationku aadayaa oo homeland security-ga ayuu aadayaa homeland security USCIS ka qaybta ah oo muxuu ahayd soo saarta waraaqaha ayuu aadaa qaybtaas waxay hoos tagtaa homeland security marka defensive asylum kuwa la dhahaa jira dadka inta badan kay Soomaalida qaadata waa dadka darbiga ka soo buudo kaleeto kaas marka maxkamaduhu aadaa maxkamadahana waxay hoos tagaan Department of Justice cadaaladda ay hoos tagaan marka dadka case-kooda affirmative-ka uu yahay oo wadanka gudihiisa iska dhiibay oo kale oo case-kooda oo homeland security-ga ay xukunto ama diidmada ama yeelida leh qoladaas caseskooda online-ka ayay kala socon karaan sida dadka qaxootiga ah oo kaleeto sida dadka muxuu ahayd waxyaabaha kala duwan buuxsanayo kale online ayay rabaan immigrationka inay waxyaabo badan ay ka dhigaan marka case-kaaga awal case-ka meeluu iska yaalay asayliga caseskooda si fiican looma eegi karin oo meel ayuu ku jiri jiray hadda laakiin dadka muxuu ahayd wadanka gudihiisa iska dhiibay caseskooda online-ka ayay kala socon karaan taasi waa qaybta koowaad qaybta labaad waxaa waaye qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxaa waaye immigrationka marmarka qaar inaa intaa wacdo waxaa ka dalban kartay application oo kale hadda applicationadaas laga bilaabo June koodeeda way joojin doonaan oo waxay u wareegayaan online ayay u wareegayaan oo waxay rabaan inay waraaqaha sii yareeyaan applicationada badankood online ayaa laga buuxsadaa qodobka labaad waa taas sidaa la socotaan daroogadan la dhaho marijuanada geedka baxa wadamada gobolada badankood sharci ayaa laga dhigay maadaama gobolada badankood sharci laga dhigay marijuanada laakiin dowladda dhexe federaalka ah weli mamnuuc ayay tahay oo waxaa waaye daroogo koreyso schedule 1 daroogada waxay u kala baxdaa qeyb koowaad 2 3 afraad ilaa 5 ay tagtaa waxaa la kala dhahaa schedule 1 2 3 4 5 marijuanada waxay ku jirtaa qaybta koowaad ay ku jirtaa schedule 1 ka kuwa la dhahaa ayay ku jirtaa marka dadka markii la siinayo sharciga citizenship-ka oo kale waxaa la eegaa qofkan qof fiican miya qof muxuu ahayd wadanka wax kusoo kordhin kara miya waxay fiiriyaan la dhaho qofka qof fiican ma yahay oo muxuu ahayd moral character-ka qofka dabeecadiisa ama wanaagiisa waxqabadkiisa ayay eegaan waxyaabaha lagu eegana oo loo isticmaalo daroogada ayaa kamid ah marka waxay leeyihiin sharci ogeysiisay soo saareen ay leeyihiin laga yaabaa gobolka aad degan tahay meelo aad u fara badan oo kala duwan in ay marijuanada aysan illegal ka ahayn oo qofku iska isticmaali karo oo muxuu ahayd aysan wax weyn ka ahayn oo la sharciyeeyay ama daawo ahaan ha loo sharciyeeyo ama muxuu ahayd sidii in lagu qayilo oo lagu baashaalo camal ha loo muxuu sharciyeeyo oo waxaa la kala dhahaa medicinal marijuana and recreational medicinal waxaa waaye midda dadka jiran ay isticmaalaan sida dadka kansarka qaba oo kaleeto cudurrada xanuunka tirada badan la qaba waxay u isticmaalaan sidii xanuun baabi'iyo kale ayay u isticmaalaan dadna waxay u isticmaalaan inay ku baashaalaan sida qaadka Soomaalida ay cuni jirtay oo kaleeto dhalinyarada badankeed saas ayay u isticmaalaan marka waxay leeyihiin maadaama laga yaabo gobolka aad degan tahay ama labadaba in laga ogol yahay ama mid laga ogol yahay laakiin la soco in mar walba daroogadu ay tahay wax mamnuuc ka ah federal government-ga
oo loo isticmaali doono in lagu eego inaan qof fiican iyo qof xun inaad tahay oo kaleeto loogana gaari doono go-aan in lagu siiyo dhalashada wadanka iyo in kale. qodobka saddexaad taas waay. kan afraad oon rabo inaan ka hadla ayaa wuxuu yahay waxaa la soo jeediyey soo jeedin proposal cusub kaasoo sheegaya wadamo badan oo Soomaaliya ku jirto in ay markay fiisa ku yimaadaan ay joogaan oo kaleeto. wadamada waxaa ka mid ah Soomaaliya, Chad, Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Liberia iyo South Sudan. wadamadaas in marka xataa booqashadooda la yareeyo. Soomaalida inteeda badan taas ma saameynayso sababtoo ah Soomaalida inta booqashada ku timaaday aad ayay u yartahay. Djibouti ayaa ku jirta wadamadaas. qof ayaa su-aashaas isoo weydiiyey, marka taasna way soo korortay. travel banka qaybtiis intaana gelin form waxaa jira la dhaho I-751 formka la dhaho oo lakaba soo qaad markuu dadka ay isqabaan oo kale muxuu ahayto uu leeyahay green cardka 2 sano ah uu rabana muxuu ahayto inuu qaato green cardka 10 sano ah. application uu buuxiyo ayaa jiro uu green cardkiisa shuruudaha uga soo saaro. applicationkaas marka waxay interview ayaa dadka qaar la mariyaa si aada ayay hadda u fiiriyaan oo kale awal addressyada inaysan dadka isla deganeen ama isla degan yihiin ama laba address haday kala baaritaan zaa'id ah sameeyaan ugu warkii isku celcelintiisa intaas waaye. marka waxay leeyihiin in mararka qaarkood haddii interview loo baahdo kale in la soo saari karo ama markii horeba interview la gelin rabay laakiin in sharci cusub ay soo saareen ay leeyihiin mararka qaarkood interviewga waan ka leexinaynaa qofka oo waiver aan ku sameynaynaa interviewga waa iska dhaafeynaa. shuruudo inaa interviewga iska dhaafo keena kara ayaa jira sida in qofka waraaqaha rekorka loo keenay oo kaleeto oo wixiisa dhan canshuurtii oo kale kaba soo qaada inay ilmo isu dhaleen labadaas qof oo kale inay isku address yihiin, bangiyadoodii, gaariyaasha caymiskoodii, waxaasoo dhan inta rekorka noocaas oo badan haddaan haysana camal exactly ayaga saas uma dhihin oo maysan oran hebel hebel aan u baahanahay laakiin waxyaabaha ay raadiyaan kuwaasoo kaleeto ayaa ka mid ah. marka haddii waraaqahana horyaala ay nagu filan yihiin inaana u baahanin ayay u badan tahay inaan raadsano waxa la dhaho muxuu interview ayay leeyihiin oo kale. intaas ayay ku eg tahay. marka qaybta labada arrimood ugu muhiimsan oo gadaal u dhigay ayaa waxay yihiin in muxuu ahayto markii la soo saaray waxa la dhaho public charge waxa way dadka dawladda ku tirsan ama cayrta qaata ama cayrtu siyaabo kala duwan oo baxdaa guri bay noqon kartaa, cuntay noqon kartaa, kaar caafimaad ay noqon kartaa, waxyaabo aad u fara badan oo kala duwan wajiyo badan ayay leedahay cayrtu ma ahan in lacag lagu siiyo kaliya ma ahan. marka sharciga waa tii la soo saaray la soo jeediyay ka bacdi waataan umu baahnaan doono inuu isticmaalo muxuu ahayto sharci dejiyaasha sida sanadka ama congaresska ma mari doono waataan idin sheegay. marka waxaa la sameeyey waxaa lagu qoray buugaagta Homeland Security waxay u baahan yihiin in muxuu ahayto dadweynaha la weydiiyo waxay la tahay oo kale opinionkooda oo dadweynaha ay cod ka dhiibtaan oo la qoro commentiga dadka waxay dhaheen ka bacdi laga baaraan dago ka bacdi ayaa buugga la geliyaa. processkaas waqti dheer u qaataa. dowladda Donald Trump marka laami kale martay waxaa jira wasaaradda arrimaha dibadda State Departmentiga ayada waayo qolyaha fiisaha bixiya kaba soo qaad case-ka markuu qofka dacwoodo wuxuu tagaa Homeland Security-gu ka tagaa haddana case-ka wuxuu sii tagaa muxuu ahayto State Departmentiga oo visa centerka qoladaas State Departmentiga hoose ka bacdi safaaraddu aadaa. safaaradda marka waxay hoos tagtaa wasaaradda arrimaha dibadda State Departmentiga hoos tagtaa. State Departmentiga buugooda sharciga ayaa wax laga bedelay oo manualkooda ama ay wax ka eegtaan oo kala dhigi kartaa sharci ma baa manual ayaa wax laga bedelay. waxaa laga bedelay marka in dadka qaadaya interviewga
ay isticmaali karaan sharcigaas oo kale. awal waxay ahayd inay homeland security isticmaasho, maadaama homeland security keedu in la dhaqan geliyo uu waqti dheer u baahan yahay. waqti saa usii dheer maaha, even maybe sanad 2 sano camal, wax fara badan ma ahan inuu u baahan yahay in muxuu ahayd albaab gadaale ee dowladda Donald Trump ka baxday oo ah in la isticmaalo State Departmentiga oo muxuu ahayd ayaga dadka safaaradaha fadhiya hadday la noqoto qofkan in uu muxuu ahayd dowladda wax ka qaadan doono, ama caafimaad qaadaya, ama guri qaadaya, ama cunug yar muxuu ahayd meel daycare geysaya, ama cunug yar cunto loo siiya iskuulka joogo. qofkaas haddii uu dowladda in yar oo caawinaad uga baahan doono, qofkan wuxuu noqonayaa qof dowladda ku tiirsan, wuxuu noqonayaa qof dowladda u baahan, dowladda lacag uma hayso, public charge uu noqonaa. marka waay dowladda loo kordhinayaa shaqooyinka muxuu culayskeeda, dhag applicationka rejection lagu dhufanaa. dadkan hadda kasoo gala wadankan Mexico kale, hadda dad badan Mexicaanka caada loogu isticmaaloyaa, dadka kale to fara badanna way saameynaysaa. laakiin hadda article waxaa laga qoray dad oo ah wadankan Mexico kasoo jeeda, laakiin qof walba oo muxuu ahayd wadanka raba inuu soo galo ayay saameynaysaa. dad aad u fara badan ayaa loogu diiday fiisaha oo wada kasta soo maray. awalna waxaa laga baqaayay in qoladan wadanka joogta oo homeland security-ga oo homeland security marka police waay, ayaga waa law enforcement, State Departmentigana qeybta siyaasadda ayay qaabilsan tahay. marka hadda waxay State Departmentiga ayaa dhaqankii muxuu ahayd sharcigii dhaqan gelinaysa. saas ayaan rabay, taas ayaa muxuu ahayd travel bank qeybtiisii kasoo korortay. travel banka aad qeybta ugu dambeysan raba inaan ka hadlaa waxay tahay markii la dhaqan gelinayay June 2018ka oo maxkamaddu ogolaanaysay. waxaa su-aasha ayaa waxay ahayd oo ay ku doodayeen dadka constitutional ma yahay, sharci muxuu ahayd xeerka wadanka oo dastuurka wadanka u degsan wax miyuu u dhimayo oo wax dastuur ma yahay. su-aashaas waatay maxkamadda sare ka jawaabtay oo tiri madaxweynaha wuu haystaa, awoodeeda wuu leeyahay, haddii si fiican loo dhaqan geliyo kaleeto in uu madaxweynaha uu awoodeeda leeyahay, kabacdi waa la dhaqan gelin karaa ayay ahayd muxuu ahayd wixii lagu ogolaaday 2018kii. hadda marka su-aalo fara badan ayaa kasoo baxay oo kale. hadda 2 case ayaa jira oo maxkamad saaran, laakiin sanado aad u fara badan ayay qaadan doonaan. waa tii loo sameeyey muxuu ahayd shuruudda ahayd waa in la dhaqan geliyo travel banka, laakiin shuruudda ku xiran ayaa waxay tahay dadkooda halkan joogaan oo muxuu ahayd cadeyn kara inay xiriirkoodu dad fiican uu yahay oo xiriir fiican ka dhexay kaba soo qaad waa ilmi iyo hooyo aabe isdhalay oo kaleeto, rag nin naagis qabo oo kale, in lasoo siiyo fiisayaal oo laga leexiyo ayaga oo waiver loo sameeyo. marka waiverkii ayaa hadda la isku haystaa. waiverkii marka waxaa la leeyahay sharciga dowladda waataad uga jawaabteen, waxaad dhahdeen wuxuu yahay waa sharci neutral ah oo dadka ma kala saaro. sababtoo ah markii hore dooda waxay ahayd in muxuu ahayd uu yahay mid ku kala saaraya dadka diinta. marka dowladii waatayga soo qortay haddana sharcigii mar labaad ay soo kala saareen, taas way kasoo gudbeen inuusan diinta dadka ku kala saaraynin. laakiin sharcigana uu yahay mid muxuu ahayd ah neutral oo dhexdhexaad ah oo dadka si gaara u kala saareen. dadkanuu saameynaya wadamadan ka yimaada, ayagana muxuu ahayd noocay rabaan ha ahaadaan ma sii kala saarayo. marka sharciga laakiin sidee loo isticmaaloyaa? sababtoo ah waiveradii dadka la siinayay dad aad u fara badan ma ahan, sababtoo ah 100% ka badan 95 dadka waiver ka buuxsaday waa loo diiday. kaysaska marka 2 maxkamadood kala yaalaan, mid California ku taala iyo mid muxuu ahayd I think Maryland mise Virginia hay u qabanin hadalkaas, ma aqaan exactly meesha kale gobolka kale meesha ahayd, laakiin California waa hubaa. meelahaas ayay 2 case kala yaalaan. sanado aad u fara badan ay qaadan doonaan, laakiin in la celiyo travel bank waxaa keeni kara madaxweyne cusub in la doorto. hadduu Donald Trump dib loo soo doortana ku hadda keena ku ka daran ayuu keeni doonaa.
marka haddii maxkamadaha ay sii socdaan waxa aan raba inaan sheegaa waxay yihiin hadday maxkamadu sii socoto rekorkaa soo baxay dowladda rekorkeeda uu qarsan yahay hadda weliba travel bank ayay siisay u diiday maxaa isticmaashay maxaa ku fiirisay shuruudahay soo buuxiyeen yaa go-aanka gaaray meeqa qofaa loo diiday meeqaa u ogolaatay maxaa isticmaashay inaa yeesho kale waxyaabahaasoo dhan su-aalahaasoo dhan jawaabahooda cidda haysaa hadda ma jiro laakiin maxkamad sheekada markay tagto oo muxuu ahayd dowladda because maxkamadu waa dhexdhexaadiye qofkii dowladda ay dhexdhexaadinaysa dowladda markay isdifaacayso waa inay rekorka soo saarto waxaa la rabo marka inay soo baxaana waa rekorka oo muxuu ahayd la arko kabacdi rekorka markii la arko maxkamadiyaa la iskula laaban karaa ama maxkamadaha hoose ha ahaato ama maxkamadda sare ha ahaato oo la dhihi karaa sharcigii aad dhahayseen dastuurka wadanka waxba uma dhimaaya ama waa sharci dhexdhexaada oo neutral ah sharcigii ma ahan dadkan waxaa loo isticmaaloyaa diin ayaa loo isticmaaloyaa oo muxuu ahayto macluumaadka la kala saaraa daadada waa la kala bixinayaa hadhowtii waxaa leeyahay dadka intaan joogay intaana loo diiday intaan daladaani hoos gashay intaan daladaani hoos gashay su-aalaha jawaabahoodii ayaa soo baxay laakiin sanada aada u fara badan ayuu qaadan doonaa arrintii qaxootiga ayadana muxuu ahayd qaybta ceyrta ayaa saameynaysa wax gaara kama soo kordhin intaas ayaan rabaa inaan ku okeeyo assalaamu calaykum